عقال سلادين iyo waxgarad kulan ku yeeshay deegaanka Wirwir ee degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya in xukun cadaalad la soo taago shakhsigii ka dambeeyay dilka Allah u naxariistay Cabdulqaadir Maxamed Faarax Raqleeye oo ku magac dheer Madoobe Gowrac kaas oo ka tirsanaa ciidamada dalka isla markaana lagu dilay degmada Luuq ee gobolka Gado waxgaradkan ayaa ka codsaday dawladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan xukun loo soo taago maadaama wili aan wax xukun la soo taagin shakhsigii ka dambeeyay dilka askarigaasi waa kuwan qaar kamid ah waxgaradka iyo salaadiintan kulanka ku yeeshay deegaanka Wirwir ee degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer oo ka hadlaya arintani anagoo aadka salaashayaasha limaadinka iyo waxgaradka garaasha iyo odayaasha joogna degmada limaadinka iyo waxgaradka gobolka Caynad degmada Buuhoodle waxaan halkan maanta ka soo jeedinaynaa waxaan halkan maanta sharaa'inaynaa oo ku saabsan cabasho ku soo sharaa'in oo ku saabsan dawladda federaalka Soomaaliya ku socota madaxdeeda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha mudane Cabdilaahi Farmaajo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha guud Xasan Cali Khayre ciidanka qarabka iyo gudoomiyaha Soomaaliya guud nabadda ciidanka qarabka soo gudbinaynaa Soomaaliya ku saabsan nin lagu dilay aan soo gudbinaynaa cabashadaasi ku saabsan koobaad nin lagu dilay 2020ka afartii koobaad degmada Luuq 2020 la goday ninkaas oo ahaa degmada Luuq askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya askari ka tirsan magaciisa la yiraahdo Soomaaliyeed Cabdulqaadir Maxamed magaciisa la yiraahdo Xasan Raqleeye Cabdulqaadir dheer Maxamed Xasan Raqleeye Gowrac ku magac dheer ninkaas oo si xaq darro ah oo adeedo loo gowrac waxaana kasoo si xaq darro ah ninka oo adeedo loo dilay isaguna waxaana dilay booliska gobolka Gado nin isaguna magaciisa Liibaan booliska Maxamed Ahmed oo la yiraahdo magaciisa Liibaan Maxamed gaar ahaan beesha ka soo jeeda beesha ninkaas oo dheere jooga sida naloo sheegay kaas oo yahay stationka jooga sida naloo sheegay Luuq ee gobolka yahay stationka oo halka jooga afartan oo jooga oo gurigiisii ah oo waxaan halka jooga afartan oo qabanin oo gurigiisii ah maamul waxaan halka shacabtoona aysan qabanin ninkiina uu maamul waxaanu leenahay shacabtoona aysan qabanin beesha guuleed garan ninkiina uu dhintay waxaanu leenahay madaxweynaha aanu nahay beesha guuleed garan xisaaban waxa ka qabteen hawshan madaxweynaha codsanayna madiisu hawshaas oo xisaaban wada ka qabteen dhinaca iyo xukuumadda ka codsanayna hawshaas oo xisaaban wada intaan dhib kale dhicin inuu wax ka qabto ninkan uu shaqeeyay oo ka tirsanaa askariga waxa in yana ilaa ayuu ka tirsanaa askariga oo ahaa ninkii yana ilaa waliba sida bareerka ah ka qabatay ma yaanada u yahay waliba sida bareerka ah naftiisa ku jiray ma yaanada u dilay askariga naftiisa ku jiray jeelkii meesha ku dilay jeelkana jeelkii meesha ku dilay jeelkana lana xukumay hatta mana la geeyna xabsina la geeyna lana xukumay waa arrin وصلوا أولانا وجنوها وحليق وجنوها وصلوا حليق وجنوها فرقوها وجنوها حليق دكيسي وعلى الذي فرقوها دكيسي معيقا دكيسي على الذي مسكن دكيسي وجوغا جوغا كنجا عقولوا على جال مسكن مريحان كان ويقولي سوي كدعي ودخلنا كان ويقولي سوي شرعان عمليه ku xaal dhaqaale waayay wuxuu bixinaya maraan عمليه xaajada qabiilay wuxuu bixinaya tallaabada sharciga dawladnimo ay qabataan tallaabada sharciga dawladda ay qabataan sanban wiil arkay soo gudbiyay dawladda sanban arkay soo gudbiyay gacan ku dhiiglaha meeshuu wax ku dilay xaqdarrada lagu haysto shanta bilood dawladda waxaan ku codsanaynaa wax ku dilay in la horgeeyo lagu haysto iyo cadaaladda la horgeeyo dawladda waxaan ku codsanaynaa in la horgeeyo sharciga iyo cadaaladda la horgeeyo waxaan dadku ugu soo gaaraya waxa hortaagan dadku ugu soo gaaraya على ساعتين وانتيونا عدم كل على ساعتين شروط مقابل حسن على خير انت وحوي انت انا عيد كادي وحوي انت وحوي مريم عيد كادي اسلامي المريم كو ورا حاجه واسانا لوغو خميي
kuwa maanta saasana loogu xiliyo kale ay weeg tahay maantana maxaad isku haysan tahay Cabdi Maalik